السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا قيمة بدا كسو دوادا موقال كلا قيمة بدن فضلا هدي أدكو عصوب تحي جنال كان سبسكرايب نو صار موقال كان لايك صار قيبتو هوسي كومنتس كان إنو الوذاك وحي فكري فعلا إيا ديري قلينبا ماد سند انتانا موقال كانو قد قلين وحسويلون وحيرو انتروا ديب أنو لاونا ديب أنا وحير ديب أنو لاونا waxaan muuqaalka nooga hadli doonaa 10 dhismo ee ugu dhaadheer dunida maan kuwa ugu balaaran. waxaan ka hadli doonaa kaliya 10 daarood ee ugu dheer markii loo eego dhirirka adduunka oo idil. 10 daarood waxaan sheegi doonaa wadanka ay ku yaalaan mid walba xilligii dhismihiisa la bilaabay xilligu dhamaaday. intan muuqaalku u gudagalin waxaan ku diinayaa adigan wadanka aad joogtid dhismaha ugu dheer magaciisa hoosna ugu soo qor aan ogaano. waxaan ka soo bilaabi doonaa midka 10aad waxaan ku keeni doonaa tan koowaad isla socod wanaagsan. dhismaha 10aad Tiebay 101 dhirirkiisu waa 508 mitir waxaana ka kooban yahay 101 dabaq ama biyaano sida aad u taqaanaba. waxa ku yaala dalka Taiwan laga soo bilaabo 2004 ilaa 2010. dhismahani wuxuu ahaa dhismaha ugu dheer dunida oo idil. waxaa la bilaabay dhisidiisa 1999 waxa uu soo ilaaday oo la furay 2004. dhismaha 9aad City Tower waxaa kaloo loo aqoonaa China Zone waxa ku yaala dalka China qaasatan Beijing. dhirirkiisu waa 528 mitir waana 109 dabaq. waxaa la bilaabay dhisidiisa 2011 waxaana la dhameystiray 2018. dhismaha 8aad Tianjin CTF Finance Center dhismahan dhirirkiisu waa 530 mitir waxa uu ka kooban yahay 97 dabaq. waxa uu ku yaalaa dalka China 2009 waxa ay goortii la bilaabay dhismahan dhisidiisa waxa uu soo ilaaday 2019. dhismaha 7aad Guangzhou CTF Finance Center dhirirkiisu waa 530 mitir waxaana ka kooban yahay 111 dabaq. dhismahani waxaa la bilaabay dhisidiisa 2009 waxaana soo ilaaday 2016. magac ka garo waxa uu ku yaala dalka China magaciisa ba ka garanaysaa inuu Chinese yahay. dhismaha 6aad One World Trade Center dhismahani waxa uu ku yaalaa New York dhirirkiisu waa 546 mitir waxa uu ka kooban yahay 94 dabaq. dhismahani dhisidiisa waxaa la bilaabay 2006 waxaana uu dhameystirmay 2014 ayaa si toos ah loo furay. dhismaha 5aad Lotte World Tower dhismahani waxa uu ku yaalaa South Korea dhirirkiisu waa 556 mitir waa 123 dabaq. dhismahani waxaa la bilaabay in la dhiso 2011 waxaana si toos u soo ilaaday 2016. dhismaha 4aad Bing and Finance Center waxa uu ku yaala dalka China dhirirkiisu waa 599 mitir waana 115 dabaq. dhismahan dhisidiisa waxaa la bilaabay 2010 waxaana si toos loo furay 2017. dhismaha 3aad Mecca Royal Clock Tower waxa uu ku yaala dalka barakeysan ee Sacuudiga qaasatan magaalada barakeysan ee Mecca dhirirkiisu waa 601 mitir waana 120 dabaq. dhismahani waxaa la bilaabay in la dhiso 2004 waxaana soo dhameystirmay 2010. dhismaha 2aad ee adduunka ugu dheer dhismahani magaciisu waxa la yiraahdaa Shanghai Tower dhismahani waxa uu ku yaalaa dalka China dhirirkiisu waa 630 mitir oo ka kooban 128 dabaq. dhismihiisa waxaa la bilaabay 2008 waxaana si toos ah loo furay 2015. waxaa noo haray dhismaha adduunka ugu dheer. dhismaha adduunka ugu dheer magaciisa waxaa la dhahaa
waa kan koowaad adduunka ugu dheer. Burj Khalifa, dhismaha ugu dheer dunida, wuxuu ku yaalaa Dubai. Dhererkiisu waa 830 mitir. wuxuu ka kooban yahay 163 dabaq. dhismahani waxaa la bilaabay 2004 waxaana dhismihiisa la dhameystiray oo si toos ah loo furay 2010. waa magaalo caadi oo la dhisay 830 mitir. waa 1 kiiloomitir oo wax yar dhiman. waa suuqi iyo magaalo mool iyo maxaan yiraahdaa wax walba ku yaal. waa magaalo caadi ah. dabaqyadaan soo sheegay dhan waxay leeyihiin waxa waaye dhismooyin oo haddii aad gasho nolol caadi ah ka helayso, magaalo caadi adigoo ku nool camal. waa haddii aad u baahato adeeg waa haysataa, jiif waa haysataa, cunno waa haysataa. adigani daawanaya keeba jeclaan lahayd intaan dhismaan soo sheegay inaad tagto? midkeebaa kula qurxan? midkeebaa xiiseynaysaa oo inaad tagto rajaynaysaa? haddaadan lacag haysan hataa qalbi ahaantee ka jeclaan lahayd inaad tagto hoos inoogu reeb. ani kulli waa jeclaa horta. dhismo dheer iyo meelo qurxa badan, buuraha iyo meelaha nature-ka, dhismooyinka dhaadheer, kuwa qurxan, kuwa qadiimiga inaad tago aadaan u jeclahay. inta 30 sano aan burbursaneen, aan nasanayna burbur iyo dil aan ku jirnay, waxaan waa la dhisayay leh kor ay usii socdeen. maalinba maalinta ka dambeyso dabaqana ka dheereeya, kana ka sareeya, kana ka lacag badan, kana ka qurux badan aa loo tirsamayay. annaga waxaan ku tirsamaynay reer hebelaan qof ka dilay, anna qofkana qof kala soo dilay. waxaasaa tirtan moodna anaga maahan. dunidu way horumaraysaa insha allah. waan gaari doonaa heerkaas oo Soomaali nabad ilaaha nooga dhigo. haddaa intaan soo daawatay muuqaalkan waxaan rajaynayaa inaad ka heshay. like saar oo subscribe inoo saar. wixii fikri faalana commentiga inoogu reeb. waad mahadsan tahay. sidaa iyo muuqaalka dambe. maca salaam.